قد كان حن حدا رويقة ماليان dadku fanka ku baahan kula ahlayna dadku way waalayaan wallahi way waalayaan dahiya kirbe ka sii darayaan gorilay maxay gorilay arrin aad ka tahay ko halne mar dahiya laga dhigay بيري markaan tabi jiray 15 markaan damac guula sooga markaan dadi jiray 15 markaan damac guula sooga khayr baan sugnaa asxaabta qaaliga waxa weeyaan dadkii waqtigooda siiyay ee waxa weeyaan runtii دقيقة ستا أعطى لها كدب marka asxaabtada qaaliga waxa weeyaan runtii dadkii waxa weeyaan giftiga waxa weeyaan Helsen Nadia waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan giftiga wallahi thank you baan leeyahay khayr baan isku ognahay asxaabtada qaaliga Ramadaan Kariim haye khayr baan isku ognahay taliyahana waan iska sii ya marka waka asxaabta qaaliga waxana giimbuska ahaa halkan muqsana lug baa ku jirta halka kale lug baa ku jirta marka waxa weeyaan Allah ina wadaayo waka dawaka wala qaday ya xaweeyaan halkii kalaba waxaan leeyahay khayr baan sugnay inoolaada xaweeyaan kala dhalinyartii reer muqsana ku jiraan aad bay idin salaamaya dhalinyartii reer muqsana aad bay idin salaamaya dhalinyarta meel kasta adduunka joogtaan way idin wada salaamaya sharaf korkiina war FIFA noolaan مسؤول لباح legend of legends qaar baan kala kelmadaas waa dhaxlay qaar baan kala kelmad waa dhaxlay waxaad saysaa kelmadaas waa dhaxal baa waa dhaxal legend جوتا dhaxal weeye waan iska dhaxalnay marka khayr baan sugnahay walaal dalaladay ciao masuud taliye ترى ku taagan markasta ku raagina مدح كركيس تلي هاي يوم يسبرنا مليين اي ما لا عطف صدوا عليها الحمد لله قبل دار لما تدري إنه إنك صنع عمري كنفس تلي هاي لو دقيقة إن شاء الله اي sanaysaa ninkeedana way cishanaysaa kartiyana isku yeela gurigeedana dhaqanaysaa marka dardaaranka reerka faa'iido mu u yahay ayaa tiri mase khasaaro u keenaa dardaaranka inta badan qofka aqliga u saaxiibka ah ayuu faa'iido u keenaa qofka awalba wixii loo sheegay aan qaadan jirin boqol qof oo aragtay wax ugu sheegtay mana kaa qaadanin hadhown way ku khasaaro waxaan ku dhahay maariyoy abayo talada ah isiisow haddii aan qaadan lahaa maanta dhibka ma igu dhici lahayn qofka aqligiisa bes waa talada lagu sheegay gabadha aqligeeda ama wiilka aqligiisa waaye adigana xumeyn kara noloshaada adigana wanaajin kara بابتي وما سنت هاي أنا لكن فكر كدبنا هاي أيه وحنجعل يعني ما أنت والدك له نقصن وحكاته سا بينتها معهن أنت شكتو انصح واي لكن سكت دبنا ويجرتها أنت أسقف أقلق لها قاته لكن والدك علي محل intaas asla soo kortay oo ku soo koriyay intaas asla joogtiin dabeecadihiisa waxaas oo dhamaad qaran laakiin marka gurigan ka baxdid waxa gali doontaa guri kale qof cusub noloshana marka hore banaanka iyo tan gudaha way kala duwan tahay sababta ognahay yani ama la sheegay inta badan aan nolol soo arkin laakiin mar walba la sheega tan banaanka iyo tan gudaha loo qofka lu noqdaa la marka haddii dabeecado cusub wax cusub أنا وحأمين سنة هاي دردار والبقول وسيو بيح قلدن أساسي كرتان تاسع أمين سنة نولش إنه ودي كرتو يعني لو بدو قف مركز مسكو وهل من اسمه جوكتو إني نولشة أي ودي كران إذا كبنان كإيه نولش يودي كرين أنا تاسع أمين سنة هاي وأنا ده هالكيد واي لكن أنا وحأمين سنة قفكم مركز أو تجا مدام وقف عصب يهي
maxaa la dhahaa qof nolosha hadda isla bilaaweyna ee tahay saas darteed isdhegeysigeena iyo anaga wax isku sheegayna nolosha wadi karna taas aamsana waa saxan ma tahay fahanti ana hal su'aalan ku weydiinaa aniga waan ogahay adiga inaad weligaa guursanin nolosha guurkana aadan waxba ka fahansanayn laakiin waxaad maqashay way jiraanoo qofka aqliga u saaxiibka ah wuxuu la sheekaystaa dadka waaweyn si uu ugu qaato talo iyo waxa ay soo mareen si uu u ogaado qofkana waxay u noqotaa cashir iyo waddadii uu mari lahaa waad aragtay shimbirka markii uu yar yahay raashin ma doonan karo laakiin shimbir kale waxay samaynaysaa inay af kusoo qaaday raashin af ku siinay annaga ma heleyno qof raashin inta noo calaanjiya afka nagu sii ma heleyno 70% sida nolosheena ay tahay maadaama magaalada aan ku noolnahay ay tahay magaalo aan ku filnayn shaqada beeskeeda dadka oo dhan aan wada kaafin karin adiga ma aaminsan tahay jacaylka kadib nolosha imaanayso bas waxaa aaminsan tahay guurka kadib nolosha imaanayso jacayl kadib nolosha inay imaanayso tusaalo ani adiga markaa isjeclaano waqti aan wada qaadano aan isbaranno teleefonkayga aad haysid kaaga aan haayo oo si fiican aan isku dhex galno dhinac walba aan iska baranno inay nolosha dhabta ah imaan karta markaan isguursano kadib mise waxaad aaminsan tahay ani adigoo ba iska siin haddii aan isguursano nolosha dhabta inay imaan doonto macnaha jacaylka guurka ka dambeeyo mise jacaylka guurka ka horeeyo horta jacaylkiisa banaan mar walba wuu jiraa gabadhay inkastoo inta badan soomaalideena aan dhahno guur kadib oo nolosha dhabta ay imaadaa laakiin mid kalena way jirtaa guurka ka hor waxaa jira jacayl waxaa jiro waxyaabo badan oo maxaa la dhahaa markaasiti inkastoo inta badan qofka markuu si dhab kuu jecel yahay dabeecadiisa runta uu ku tuso haddana waxaa jirto guur kadib dabeecado kaloo imaadaan dabcan maadaama qofkaaneti hal meel ma wada joogtiin inta badan maxaa la dhahaa telefoonna ku wada xiriirtiin laga yaaba daas aragtiin xitaa dabeecadaha dhabta ah oo qofka gurigiisa ku joogo ma ahan miduu adigu ku tusaayo hadduu ku jecel yahan maba ku tusi karo ma fahamta dabeecadiisa dhabta soo guurka kadib nolosha dhabtaa imaado guur kadib jacaylka dhabtaa imaado guur kadib wax walba oo nolol ah ama jacayl ku saabsan oo reality ay imaadaan so waxaan kaloo aaminsanahay haddii lagu guursado inay caanimadaada dhammaanayso muuqaalada aad soo dhigtid qaabkii hadda fiiska u helaan inaysan beri u heleynin ma aaminsantaha dad badan oo hadda maadaama adiga aan lagu qabin ku sabood garaynaayo oo aad isleeyahay dadkan gabadhan beri inaad nolosha aad wadatana macquul ah oo aad rajo kaa qabo oo maanta rajadaas kugu sabood garaynayo beri haddii aad guursato ma laga